Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Juuqlaaw Media. Haddii aad naga daawanayso barteen YouTube-ka, fadlan subscribe saar, like-na dheh, siin share garay oo la wadaag asxaabtaada. Aad ka mahadcelina daawashada muuqaalkan. Haddii aad naga daawanayso barteen TikTok, fadlan follow dheh, love-ka noo saar si uu gaaro asxaab badan. Adeerska inoo taawo. Aad u mahadsantihiin. Waxaa maanta ku falanqeyn doonaa kulamadii laga dheelay shalay toole horyaalka kubadda cagta Premier League iyo kulamo kale oo aad iyo aad u xiiso badnaa oo shalay toole dhacay min Barca ilaa iyo Atletico Madrid oo xasuuq baan u geysatay naadiga kubadda cagta Juventus. Shalay toole ayay ahayd markii dib loo ambaqaaday horyaalka kubadda cagta Premier League maadaama sabtidii la dheelay kulamo xasaasi ah, laakiin shalay toole waxaa baasmay kulamo qaar. 3 kulan ayaa la dheelay horyaalka kubadda cagta Premier League. naadiga Leicester City ayaa soo dhaweysay Brentford 2 gool ayayna ku kala baxeen. Leicester oo isla meel cidla ayay ku dhici doontaa maadaama Schmeichel oo ka tagay haddana wax xidig aysan suuqa ka soo qaadan. waxaa lis lahaa meel cidla ayay ku dhici doontaa walow ciyaartaba 90 laga bareejiyay 2 gool lagu kala baxay. taasi waxaa ka darneed naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa soo dhaweysay dhigeeda Brighton and Albion ayaana gool aad iyo aad u muhiimsaneed ka qaadatay dhigeeda Manchester ayaana garoonka shax aad iyo aad u weyn ku soo gashay, laakiin natiijada meesha laga filayay ma aysan dhicin. Manchester United ayaana gool dar xanuun badan ku furatay horyaalka kubadda cagta Premier League seasonkan maadaama Brighton ay 2 gool ugu adkaatay. Manchester United ayaana laga soo calaameeyay in meesha ciyaartooyba aysan ku hayn u diyaarsan inay u tartamaan ama ay ku guuleystaan horyaalka kubadda cagta Premier League, taas oo ay sheegeen falanqeeyaal aad iyo aad u badan kana tirsanaa jiray naadiga kubadda cagta Manchester United. kulankaas markii laga soo tago waxaa jiray kulan kale oo aad iyo aad u weynaa oo la sugayay inuu ka dhaco horyaalka kubadda cagta Premier League, kaasoo ahaa kulan u dhexeeyay West Ham United iyo Manchester City ayaana 2 gool waxba ku adkaatay. goolal ka imaadeen xidiga dhawaangalka ah reer Norway Erling Braut Haaland, kaasoo oo shabaqa gaaray daqiiqada aad iyo aad u yar maadaama uu helay rigooro uu asiga keensaday. taasna ay ka dhigneyd in rigoorada uu asiga tuuranayo maadaama uu yahay xidig dhawaangal ah oo booska number 9 Manchester City u taagan hadda iyo wixii ka dambeeyo. Haaland ayaana shabaqa sidaas ku gaaray akoonkiisii Premier League furtay maadaama uu xidiga kulankiisa ugu horeeyay ee horyaalka kubadda cagta Premier League oo ahaa. goolkaas ma uusan ku ekaan, waxaa imaatay gool kale taasoo ka dhigtay in Manchester City 2 gool waxba ciyaarta ay ku hogaamiso. waxaa mar kale shabaqa gaaray Erling Braut Haaland, kubad uu dhaxbixis fiican oo ka helay xidiga reer Belgium Kevin De Bruyne. taasna waxay ka dhigtay in Manchester City 2 gool waxba ay ku adkaato. 2 goolna Erling Braut Haaland ayaa shabaqa gaaray. Haaland ayaa ka mid noqday xidigaha hogaaminayo gool dhalinta horyaalka kubadda cagta Premier League maadaama 2 gool oo asleeyahay. Kroos oo 2 gool leh xidigii shalay ee Manchester United 2 gool ka dhaliyay. sidoo kale xidigii Liverpool 2 gool ka dhaliyay asigana Mitrovic oo min 2 gool leh ayaa horyaalka kubadda cagta Premier League hogaaminayo gool dhalinteeda. yaa ku guuleysan doona xil ciyaareedka soo socdo. sidoo kale waxaa kulamo laga dheelay kulamo iska baashaal ahaa iyo kulan asigana u dhexeeyay Barcelona iyo naadiga Pumas oo dhankan iyo Mexico ka dhisan. kulankaas oo loo dhigay koob sanadla koob sanadla ee Barcelona dhigato Joan Gamper Cup, kaas oo Barcelona ay balansatay naadigaas Mexico ka dhisan. laakiin ciyaarta intaysan bilaaban waxaa meesha ka dhacday xaflad yar oo lagu casuumayo oo lagu maamuusayo xidigoodii hore Dani Alves. xidigaas oo aad iyo aad u weyn naadiga kubadda cagta Barcelona, kaasoo la siiyey bilad sharafeed aad iyo aad u muhiimsaneed kana dhigtay in 400 iyo qadaadiic kulamo oo u dheelay naadiga kubadda cagta Barcelona. xidigaas ayay bilada siiyeen. kadib waxaa lasoo dhaweeyey xidigii cusba walow mar hore lasoo bandhigay, laakiin xalay toole waxay ahayd kulan caalami ah oo taariikh u galay maadaama lasoo dhaweeyey dhammaantooda. xidigii cusbaana bandhiga
xalay toole ee ciyaarta ka sameeyeen wax lasoo koobi kara ma ahayn. Xalay toole markay ciyaarta saas u bilaabatay, Barcelona ayaa daqiiqada yar ku heshay goolkoodii ugu horeeyay, waxaana furay oo akoonkiisana furtay Roberto Lewandowski, xidiga dhawaangalka ah ee ka yimid naadiga kubadda cagta Bayern Munich. Bayern Munich ayaana xidigaas soo fasaxday, lacag ku dhawaad waxay kusoo fasaxday 50 milyan. Barcelona ayaa sidaasna gooshii ugu horeysay ku furatay sanadlaha, maadaama koobkaas oo mar walba oo ka horeeyo furitaanka horyaalka kubadda cagta La Liga iyo koobab maxalliga ah aysan ciyaarin horyaalka ka hor. Barca ayaana bandhigeeda sii socday, waxaa shabaqa gaaray xidiga Dembele, sidoo kale waxaa gaaray Badri oo 2 jeer ah. Waxaana soo gabagabeeyey xiriga Frank de Jong, xidiga baxsadka ah naadiga kubadda cagta Barcelona, walow madaxweynaha uu sheegay in xidigan fasax uusan ahayn oo laga doonayo in uu sii joogo, lana jecel yahay sii joogistiisa. Marka waxaa laleeyahay Barcelona waa ay soo laabatay maadaama ay 6 gool iyo waxba u adkaatay naadigaas. Goolashaasna Badri ayaa aad loo ammaanaya, iyo bandhigii Lewandowski asigoo 1 gool cajaa'ib la dhaliyay, 2 goolna caawiyey. Xidig garoonka ayaaba loo magacaabay Roberto Lewandowski. Kulankaasna sidaas ayuu ku dhacay. Barca isbaag ayay leeyihiin taageerayaasha Barcelona iyo maamulkoodaba. Sidoo kale waxaa dhacay kulan aad iyo aad u xiiso badnaa oo shalay toole mararka qaar soo baxay inuu baaqday, laakiin ay dheeleen naadiyaasha kubadda cagta Juventus iyo Athletic Madrid. Waxaana ciyaartaas ay ku dhamaatay 4 gool iyo waxba ay ku adkaatay naadiga kubadda cagta Athletic Madrid. Kulan oo xidig ka ahaa xidigoodii hore ee Juventus, Alvaro Morata, oo qaab amaah ku joogay, laakiin Athletic Madrid ay leedahay, kaasoo 3 ley ka dhaliyay, maadaama xidiga amaahdiisa ay usoo dhamaatay ayna gada waayeen Juventus. Hadda Athletic ayuu ka tirsan yahay, bandhig high level ayuuna ka sameeyey kulankaas. 4-0 ayaana lagu xiiqay naadiga kubadda cagta Juventus oo xidigeeda inta badan wadatay, laakiin lagu eedeynayo daafac xumi iyo Szczesny asina dhaleeceyn la kulmay, laakiin weerarka waa uu shidnaa, walow xidiga reer Talyaani Chiesa oo ka maqnaay, sidoo kale Pogba oo ka dhaawacan. Marka 4-0 taas ayaa loo adkaaday naadiga kubadda cagta Juventus. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeena. Haddii aad ku cusubtaa barteena YouTube-ka, fadlan subscribe saar, like-na dheh, siina share gare oo la wadaag asxaabtaada. aad kaa mahadcelinaa daawashada muuqaalkan.